qaybta labaadna waxay ka hadlaysaa magaalada Dirraba waqtigii la asaasay ee dhisantay oo ah 1902 ilaa waqtigaas magaalada taariikhdeeda siyaasad ahaan iyo bulsho ahaan iyo dhaqaale ahaanba uu koobsanaya. marka qaybta hore waxa kamid ah saldanadii adal ama awdal iyo dadkii ka tirsanaa saldanadaas iyo halgankii Axmed Guray oo maanta si fiican looga hadlayay oo maaragtaan ambassadorku uu si fiican uga hadlay. sidoo kale buugu wuxuu ka hadlayaa dhul ballaarsigii Oromada se la ogsoon yahay Axmed Guray markii la dilay quwaddii muslimiintu hoos bay u dhacday marka kristankii iyo muslimiintii oo horey isku soo daashaday waxa ka soo dhex baxay quwad cusub oo labadaba aan ahayn. marka dhul ballaarsi bay dhinac walba maaragtaan ka sameeyeen. waqtigaas ayay dhulka Soomaalida yimaadeen. magaalada Harar waxay soo gaadheen 1557 ilaa xeebaha Soomaalida ay qabsadeen mudday joogeen dib baa mar dambe loo soo riixay. marka waqtigaas ay yimaadeen iyo dhul ballaarsiga wagaana si kooban ayuu buugu uga hadlayaa. sidoo kale wuxuu ka hadlayaa ninkii la odhan jiray Richard Burton ninkaas oo 1854 Zaylac ka soo degay oo Harar yimiday kadibna Berbera tagay cadan ku noqday. waxyaabihii uu ka qoray Soomaalida oo kooban ayaa iyadna buugu ka hadlayaa. sidoo kale masaaridii Harar maaragtaan ay qabsatay ee ka talinaysay 1875 ilaa 85 iyadana uu ka hadlayaa. wuxuu kale uu ka hadlayaa dagaaladii uu ku soo qaaday Menelik dhulka Soomaalida ayuu iyadana ka hadlayaa. sidoo kale wuxuu ka hadlayaa guumaystayaashii reer Yurub Faransiis iyo Talyaani iyo Ingiriis ahaa. sidoo kale halgankii Sayid Maxamed Cabdilla Xasan uu ka hadlayaa. kadib ayaa maaragtaanay aan soo waxaan bilaabaya markaa magaalada Dirraba ay ku asaasantay. wax yar haddii aan dul istaago magaaladu say ku asaasantay waxaa jirtay markii uu boqor Menelik uu qabsaday Harar 1887 Abyssinia waxay xidhiidh cusub la samaysay Faransiiska. marka xidhiidhkaas waxaa ka dhashay in uu Faransiisku laba wado furo. labadaa wado waxay kala ahaayeen wado isku xidha Djibouti iyo Harar oo ay safaradu maraan iyo tareenka oo maaragtaan isku xidhaya Djibouti iyo Addis Ababa. horey waxa u jiray wado isku xidha Zaylac iyo Harar iyo mid Berbera iyo Harar isku xidha. marka labadaa wado cusub ee dambana waa la sameeyay oo Faransiiska sameeyay. wadooyinka dambe ee la sameeyay iyaguna waxay sababeen inay magaalooyin cusub asaasmaan kuwa horey u sii jirayna in ay burburaan ama uu hoos u dhac ku yimaado. magaalooyinka wadooyinka ka dhashay waxa ugu muhiimsan magaalada Djibouti iyo magaalada Dirraba. kuwa hoos u dhac ku yimid ama burburayna waxa kamid ah ugu muhiimsan magaalada Zaylac iyo magaaladii qalcad la oran jiray u dhaxaysay Zaylac iyo Harar. hadda waxay ka tirsan tahay ismaamulka Dirraba oo miiga waxay u jirtaa magaalada ilaa dhowr 40 kilomitir. wadada hore magaalada Djibouti oo isku xidhaysay Harar oo tii Zaylac iyo Harar isku xidhaysana dhaxda iskaga biirayeen waxa sababay iyada Menelik wuxuu u baahday maadaama uu dhul ballaarsi waday dhulka Soomaalida inuu qabsado doonayay hub dheeraada inuu helo. marka hubkan waxa uu keeni jiray ganacsato Faransiis ah. ganacsatadii Faransiisku waxay kula taliyeen in uu Menelik weydiisto Faransiiska albaab badeed in la siiyo si hubka ay u keenayaan uu toos markaa la wareego. warqad buu markaa Menelik u qoray ninkii la oran jiray Lagarde iyo maxaydaan maamulaya Obokh waa isla sanadkii uu Harar qabsaday 1887 warqadaasoo waxay ku qornaa waxa kamid ah ganacsatada Faransiiska ee dalkayga jooga ammaankooga waan ilaalin ganacsiga adoomaha
waan mamnuucay haddana si adag baan usii mamnuucay adu sheeko dheer marka waxaan niga codsanayaa halka albaabka inaad ii furtaan marka arrintii ninkii Lagarde ee Faransiiska waxay ku abuurtay yididiilo cusub maxaa yeelay horey waxa u fashilmay waddo la rabay inay isku xidho Obokh oo Djibouti iyo Ankobar oo caasimadii Shawa ee Melilig ahayd ayaa horey u fashilantay yididiilo cusub ee arrintani ku abuurtay wuxuu isku dayay inuu dawladdiisa ku qanciyo arrintii waqti dheer bay qaadatay laba arrimood baa hortaalay mid waxay ahayd dadka dhulka maaragtaanay waddada laga furayo degan in la qanciyo midda labaadna waxay ahayd Ingiriiska iyo Faransiisku maadaama xuduud isku hayeen arrinta xuduudda in la xalliyo inta laga horreysiiyo arrintii baa lagu dhaqaaqay arrintii maaragtaanay dhulka waxa lagala hadlay ugaas Roble Faarax Guntiweyne ayaa lagala hadlay oo Obokh baa lagu qaabilay waxa lagala hadlay dekad in Djibouti laga sameeyo wadadana in la furo ugu dambeyntii waa la isku raacay wadadu saasay ay ku furantay kadib adu Ingiriiskii iyo khilaafkii u dhaxeeyay Faransiiska iyo xagga xadkana waxa la soo afjaray 1888kii markaas sanadkaas waxa Djibouti ka abuurantay dekad cusub waddo cusub iyo magaalo cusub magaalada Djibouti markaa waqtigaas ay asaasantay sidoo kale wadada kale tareenka oo waxa la yiraahdaa tareenka ayaa magaalada Dirraba dhalay oo isaga sabab u ahaa tareenka marka fikirkiisa isagana waxa lahaa nin la oran jiray Alfred Ilg oo maaragtaan engineer wadanka Switzerland u dhashay buu ahaa ninkaas baa faray Melilig isku dayay inuu ku qanciyo in xadiid la sameeyo Melilig markii hore uu ka diiday sababuhu diidayna waxa kamid ahaa wuxuu ka cabsanayay hadii xadiidkaas la sameeyay reer galbeedku si fudud inay dalka u qabsan karaan ta kalena waxay isagu markaa Shawa uu maamulayay boqorka guudna wuxuu ahaa Yohannesna ma jeclayn xadiidka in la sameeyo bilowgii uu diiday mar dambe 1889kii markii uu Melilig noqday boqorka guud ayuu fikirkii mar labaad u soo bandhigay mar labaadkii markaa uu aqbalay Melilig uu aqbalay Yohannes meesha uu ka baxay isna wuxuu u baahday wadda uu kala xidhiidho dibadda fikirkii hore iska bedelay isla sanadkaas wuxuu warqad u qoray Faransiiska isagoo leh waxaan rabaa in xadiid la sameeyo isku xidha Djibouti iyo Abyssinia isku xidha 1893kiina ninkii Alfred Ilg loo oran jiray buu u fasaxay inuu mashruuca soo daraaseeyo shirkadna uu sameeyo isna nin saaxiibkii uu la kaashaday hawshii waa la guda galay alxaasil heshiiska marka tareenka markii la dhisayay waxa wuxuu dhigayaa in saddex qaybood loo kala dhiso xadiidka qaybta koobaad Djibouti ilaa Harar qaybta labaad Harar ilaa Intoto oo ahayd xaruntii Melilig ee Addis Ababa ka horeysay Intoto ilaa Kafa ilaa Niilka cad oo Melilig aaminsanaa inuu yahay Niilkaas cad xadkiisa dhinaca galbeedka taas markii adu hawshii waxa la bilaabay xadiidka 1897 baa Djibouti laga soo bilaabay laakiin ka hor inta la bilaabin sanad ka hor waxa wax laga bedelay qorshihii ahaa Djibouti iyo Harar marka waxa loo soo wareejiyay Djibouti iyo Dirraba ayaa loo soo wareejiyay maadaama Harar buurley ku taalo kharashka badan baa laga cabsaday marka la soo wareejiyay marka tareenku wuxuu soo gaaray marka Dirraba 1902 ayuu tareenkii ugu horeeyay marka soo galay 1902 bishii December 23keedii tareenkana wax nin cadaana waday dhagaxan marka dhuxusha ayuu ku shaqaynayay nin Soomaali oo xirsi geelin la yiraahdo ugu tuurayay dhuxusha waqtigaas ayaa la yiraahdaa Dirraba magaalo ahaan waqtigaa bay asaasantay 1902 waan ku dheeraad moodaa wax yar waxaan ka taaban marka Dirraba waxay noqotay meel marka ka horumarsan waqtigaas Addis Ababa oo wax badan oo ku soo horeeyay waayo tareenku labadii buu soo gaaray Dirraba Addis Ababa wuxuu gaaray 1917kii gaarigii ugu horeeyay Dirraba horta la keenay 1907 kadib Addis Ababa loo qaaday wax badan bay kaga horeysay marka waxa la oran jiray Dirraba waa magaalo yar Addis Ababana waa tuulo weyn baa la oran jiray waqtigaas waxaan wax yar waqtigu hadduu iga samo ka taabani xidhiidhka ka dhaxeeya Soomaalida iyo Dirraba waxaa jirta buuga Futuux al-Xabash waxa ku qoran goob magaceeda la yiraahdo Dir al baraacsan marka asha laga reebo Dir
waa goobihii ciidamada Axmed Guray ay maaragtay dhowr jeer bay degeen marka nin la yiraahdo Huntingford marka wuxuu qoray book la yiraahdo The Historical Geography of Ethiopia wuxuu sheegayaa ku doodayaa goobtaasi inay dir raba ahayd ayuu isagu sidoo dhigayo qaarna waxay waa meelo kale oo ka fog oo xagga galbeedka sii xigta saas uu dhigaya kow iyadana waxa jirta Axmed Guray saaka waxa laga hadlayay inay isqabteen Suldaan Abubakar ugu dambeyntiina Axmed Guray Suldaan Abubakar dilay marka buugga la yiraahdo garbaduubkii gumaysiga waxa ku xusan magacan Dirdhaba inuu bixiyay Axmed Guray wuxuu leeyahay Dirdhaba waa halkii uu Axmed Guray ku dilay Suldaan Abubakar markii uu dilay ayuu yiri buu leeyahay alla ilaahe maantaan dirir dhab ah galay maantaan dirir dhab galay yani dirirtii gudaha hadii tolo iga soo afjarantay waxaan u gacan banaanaan doonaa dadkan isayno isaga bixiyay buu marka aaminsan yahay sidoo kale waxa jira ninkii sheegay Lagarde ee ubuq maamulay markii dambana danjiraha Faransiiska u fadhiyay Addis noqday jariidad baa wareysatay 1899 marka waxa la weydiiyay mashruucan xadiidku inuu fashilmo ma laga yaaba markaas uu leeyahay maya sababtoo ah Djibouti laga soo bilaabo ilaa Dirdhaba cid qura dad qura degan hadday dhibaato imatana dadka u man kala xajoonayna marka dad waxa jiray odayo Soomaaliya oo wixii khilaaf yimaad xalin jiray waxa kamid aha oday Cali Faarax la oran jiray ayaa kamid aha marka odayada ugu dambeyntii wuxuu ugu abaal guday Menelik adoomo xabashiyu siiyay hadiyadahan uu siiyay dumar adoomo oo xabashiyu hadiyadahan uu siiyay marka dadkaas ayaa dhulka deganaa waqtigaas ilaa hadda isma bedelin yani qaabkiin baa loo degan yahay sidoo kale odayga xirsi geelle ee sheegayay markii xadiidka la daraasaynayay dhulka la marinayo injineeradu soo raacay wuxuu yimiday magaalada oo jirin halkan cidii garan baa garanay guriga Xayli Salaasa oo ka dhisan yahay tuur yar buu ahaa awr loo fuul baa la oran jiray halkaas uu soo maray halku faras magaaluhu ku yaalay buu yimiday marka ninkii cadaanka ee wadtay baa oranay marka halka waxaan ugu tagnay buu leeyahay reer Soomaaliya oo degan oo miya ayaan ugu imanay buu leeyahay marka ninkii baa igu yiri halkan magaalay noqon doontaa dhulka qabso markaas aan ugu jawaabay waxaad rabtaa inuu libaaxu meesha igu cuno marka halkaas iyadna waxay cadeynaysaa dad Soomaaliyeed ay deganaayeen wafdi waxa jiray isaguna Faransiiska oo 1902 bishii December soo maray intuu xadiidku soo gaadhin iyaguna markay soo gaadheen meesha qalcad la yiraaho waxay abaan u ahaayo wadada maaragtay oo hagayay nin Soomaaliya ayaa u raacay wixii ka dambeeyay qalcad oo marka waxay mareen Shiniile Huurso haddii aad buuga hore ku aragtaan Addis Harar waa Dirdhaba marka heshiiska waxa ku qornaa Addis Harar waa harartii cusbeed harar baa caan ahayd marka qoraalada waxay ku qoraan Addis Harar bay ku qoraan marka cid walba meesha ay degantahay iyada abaan ka ahayd waxa jirtay dad badan oo soo maray maamul ahaan markaan eegno 1910kii Xayli Salaase oo yar ayaa loo magacaabay inuu noqdo gudoomiyaha gobol weynihii Harargii la oranayay marka wuxuu u qaybiyay 12 gobol buu u qaybiyay waqtigaas meel walbana dadkii deganaa buu ugu magac daray Dirdhaba iyo gaarkeedana wuxuu ugu daray gobol ugu magac daray Ciisana Gurgura Awraaja oo 1910kii waxa jiray wafdi Maraykana oo uu hogaaminayay Robert Skinner la oran jiray book buu qoray Abyssinia of Today la yiraahdo marka Djibouti uu tareenka soo raacay Dirdhaba xogaa joogeen Harar bay tageen Dirdhaba markuu ka hadlayo wuxuu sheegayaa magaalada gaarkeega iyo gudaheeda magaalada marka laba qaybood bay ahaan jirtay jasiiradda iyo magaala la kala oran jiray jasiiradda cadaan baa deganaa qaybtan madowgana dad Soomaaliya oo Ciise iyo Gurgure inay deganaayeen buuga ku qoraya kadib xagga Harar bay u baxayaan markaan Harar u dhawaano ayaan arkaynaa buu leeyahay dad Oromo ah waxa jira isaguna wafdi galo Turkiya oo ka dambeeyay oo watay nin Saadiq Baasha la oran jiray 1904 bay iyaguna yimaadeen iyaguna sidaas la egmi iyo magaalo xitaa dadka ku soo dhaweeyay bay sheegayaan dadka kale 556 bay noogu iman jireen bay leeyihiin dadka Soomaaliduna 500 600 agagaarka dadka deegaanada Soomaaliya ku tilmaamaya waxa jiray isaguna nin Xayli Salaase ilmi abti ahaayeen oo isna la oran jiray Imiru Xayli Salaase oo basna la oran jiray isna wuxuu ka hadlayaa waqtigii Lijiyaasu ayaa booqasho ku yimid Dirdhaba 1915kii dadkii magaalada cadaan iyo madowba ah buu soo dhaweeyay
xataa kama tegin buu leeyahay dadkii miyiga deganaa oo qabaa'ilka Soomaaliyeed degan buu sheegayaa xataa qaarna wuxuu ka dhigtuu leeyahay saaxiibo gaara ayuu ka samaysay marka isaga oo aan ku faraxsanayn buu ka sheekaynayaa buuggan waan akhriyey buugga title waxa ku yaalay xidhiidh inuu ka dhaxeeyay Soomaalida Dirdhaba deganayd iyo xornimo qaadashadii Soomaaliya qaybta koonfurta waliba bal hadda halka yar tilmaam baan ku oran lahaa yar Kamal wuxuu jeedaan u maleynay waxa jirta buuga ku jirta title ka hadlaya waxyaabihii sababay in Soomaali badan ay magaalada Dirdhaba ka guurto waxa kamid ahaa 1950kii ayaa koonfur loo ogolaaday xukun hoosaad marka dad badan oo magaalada deganaa gaar ahaan xaafad imika loo yaqaano Dajatu horeyna loo oran jiray xaafad Daarood dadkii deganaa intoodii badnayd way guureen oo koonfur bay tageen intii hadhay waa la raray xaafadda waxaa deganaan jiray ninkii la oran jiray ciyaaryahanka ay kubadda ciyaari jiray Buddhiste ama Yara Agoon ama Dragon ninba si uu yaqaanay reer Rabaha xaafadaas uu deganaa dad badan baa ka guuray marka waqtigaas intii hadhayna waa la raray xaafad Tuurta ama magaalo Jabta loo yaqaano ayaa la dejiyay guryahoodiina qoysaskii ciidamada la geliyay marka kadib waxa dhacday haddana bartamihii kontonaadka iyada laftigeeda ayuu Ingiriisku ballan qaaday inuu waqooyi siin doono marka xorriyad dad badan oo deganaa xaafadda qafiirka la ilaa masaajidka Sheekh Ciise ayaa guryahoodii qaarna ay raqiis ku iibiyeen qaarna maaragtaanay ay iskaga tageen oo ka guuray magaalada iyadana waxa jirtay 60kii markii xorriyadda la qaatayna dad badan baa magaalada ka tagay oo ka guuray waxaad ogsoontihiin dagaalkii 64kii markuu dhacay dhibaato loo geystay dadkii markaa Soomaalida ahaa ee Dirdhaba deganaa Xali Silaasi markaa wuxuu oran jiray haddii uu daanyeer beertaada ka cuno ma daanyeerkii baad raadsani mise kaad aragtaba waa dili yani Soomaaliya haddii ay xaggan haddaan isku qabano tan joogtaba waan ka jari marka dhibaato loo geysanayay taasina waxay sababaysay inay magaalada markaa dad badani ay ka qaxaan sidoo kale waxaa jiray xaafad Sheekh Xabiib loo yaqaano waxa la dejiyay dadkii intoo laga raray Soomaalida ahaa iyagoo meel kalena la siin askar boolis mareed baa loo yaqaanay boolis mareed waa maxay dhacayn qoysaskii booliska iyo militariga la siiyay sidoo kale 67kii ninkii General de Gaulle loo oran jiray baa Djibouti miday reer Djibouti waxay codsadeen markaa xorriyad bay codsadeen reer Dirdhabana way taageereen taageeradiina dhibaato ka soo gaadhay ay taageereen laftigeeda waqtigii 72kii Xali Silaasi wuxuu go'aamiyay waxa ka horeysay taas markii la asaasay ururka SYL 43kii go'aan waxay qaatay dawladda Itoobiya waqtiga jirtay in Soomaalida la fogeeyo si kasta oo maaragtaan dhulka looga riixi karo in lagu riixo marka dagaaladii lagu qaaday waxa kamid ahaa 56kii waxa lagu qaaday dagaal waxa laga soo bilaabay Matahar agteeda dagaal socday 5 habeen iyo 5 daraarood waxa maxay daana loo adeegsaday diyaarado iyo gawaadhi iyo dibaabadii wax walba loo adeegsaday waxa la keenay ilaa 8 dixood baa laga soo talaabiyay dadkii waxa ku xigtay iyadana way badnaayeen dagaaladu 72kii waxa ka horeeyay National Park-gan Awash National Park waxa laga soo raray isaga laftigiisa dad Soomaaliya laga soo raray intii ka hadhay ilaa hadda degan yihiin miyiga Matahar ay degan yihiin cidii waa la garan karaa marka waxa laga soo raray oo park-ba marka laga dhigay waa mar walba Soomaalida hal riix Allah 72kii xataa xoolahoogii baa laga laayay marka waxa la rabay Dirdhabi wixii ka hooseeya ugu yaraan in xadka laga dhigo waxyaabahaas iyo waxyaabo lamida ayaa keenay in isbedel dhinaca demografiga inuu magaalada Dirdhaba ku dhaco